waxaan u tacsiinayaa dadka reer Puntland ee dadka aan arkay tacsi yani waxaan uga tacsiinayaa dadka reer Puntland in dadka aan arkay ay madax iyo maamul u yihiin wata maxay sameeyaan madax miyaadan arag iyaga oo saxamo wato oo canjeero ka tuugsanaya xabashi ma garow dhexdeeda seewa tuugsanayaan juxa iyo kii kale aydiid iyo hoos dhiganaya saxan عنجارة أنت دم علينا يا باش الزبادة حفظني كوري وحين الله حق الماشي تلا جلان فيري تلو سوري إلا كنا يا أخي شو حبها الله وحوي يعني وضع درس بان هاي أو استحق وحنا قد هاي إسكاشي إيو محاونكو إلى هاي استحق لك بالشدة يعني قد هاي حقوق سووا قد حقنا جحا ها سوكي هذا قال حق لبوق قراء سنتنو إيه كان تاهي دبيسي لغاية بور إنتو تغو قلادي يقلوب تغو وماشي وكبر باري وكسو جبادي جري بلها صوفيريو مانتا إيا شرايتو واحد فرق جاها ودحي مالك وسنتنو كدحلها إيا مانتا واسكومت ودد يعني آد وجعل حيسية إن أي حنباران دد كالي Soomaalidana badana ka cararaan yani siyaasadda maamulkan uu ku shaqeeyo xasan xumeyn baa markaa arintani xasan maxay yeeli karaan haday si kasta ugu xumeeyaan xasan qofka wax yeeli kartaa wax lagu xumeeyaa xasan isagii baa tuugsanaya yani sababka waxay ka xun yihiin nooc yar min al-masayr weeyo xasabo waa tagay idinkuna halkan ku xusa buugga sintino Soomaa arag uu qoray inuu naag axmaar ah dabadaadu waa meeqa akhlaaqda noocaas qofka yani maxaan ku yiraahdaa لهبا ومدن وسير أخلاق ذا النوع عاس ناقبا ما خلد ما وقت تلقل ساسا هذا ما حنقول هذا ايتو يعني مدحوينه يوحى كفر حسين ونك ugu balaaya badan ugu balaaya badan ha u sharafta badan bay ku leeyihiin kula soo arkeen ra'iisul wasaaruhu waa wacel maxamed ciidid ha de waa dadka nooc maamulka Puntland lagu sheegay waa wax noocaas ku xumayn Soomaalida kale ayuu saa u leeyahay waxaan la sameeyay saxamada la hoorsanayo Soomaa arag dadka saxamada hoorsanayo ku jira tuugsanay ma tuugsanay inuu qadanayeen hada baa waxa soo kale meesha Itoobiya looga barooranayo meesha Itoobiya waa walaalaheen waa si walaalaheen waa wadankeennii sargaal Soomaaliyeed oo dhihi kara ma garan karaan ma fahmi karaan Itoobiya maxay uga dhigantaa in waxba أذا هذا عيالك يسكت دليل بانكو محنكو هذا يتو هبل ومعاي كرتيده محنكو هو يلي معاي كرتا إدوري يسوقي نيروبي دنا سومالي لها ميو أوجي كوا يسكت دليل وكوا سو كلوي واحد أيكوكتا وما نباهنا واحد إثيوبيا واحد باهي وما قبته shirkadda guryaha ee Maslax Executive Suites waxay bulshada ugu bishaaraynaysaa in xaafadda Backland ay ugu hayso 3 dabaq oo laba gabagaba yihiin midna bilow yahay guryuhu waxay ka kooban yihiin 4 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 3 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 2 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha guryahan waxa ay leeyihiin dhammaanba adeegyada asaasiga sida masaajidadii madrasooyinkii dugsiyadii quraanka goobihii jimicsiga garoomadii carruurtu ku ciyaari lahayd suuqyadii dukaamaysiga goobihii dabaasha iyo baakinadii gawaarida sidoo kale shirkadda Maslax Executive Suites waxay guri cajiib ah oo 6 dabaq ah ka wada xaafadda Isli gaar ahaan Airbase waana guri saaran garoonka ciidanka cirka ee Kenya waana gabagabo gurigan waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 2 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha doqon calaf male oo dambeeya ma gaaro hore u gaar shirkadda loo bogay bulshadii u riyaaqday Maslax Executive Suites magacaba ka garo waa meel aad loo hanaanshay waana la huba wixii faafayntaasi dheer kala xiriir نمبر شاشة كحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسد وضيال كسر وهذا برنامج كنا حوارنا برنامج شقيبة أنت وسعودها ضياب وقلاده وحن كفلا قاين دونا بوتلان وحل لو جد بالدقي بيحدين كضل كاسي إثيوبيا أباي كاسي والله وذو بري إلا دافرو. هذا وحنا نجد دونا بالقاب كجودها بوتلان لو جد بالدقي بيحدين كاسي يصابته كأنت يسودو كله جنرال سعيد داري وطريه رعيين كحوج ضل كسوماليات أو هذا ضل كسوماليات أي أدلا يابين كشجعي حفلتي لوجود بالدقة يبي حيانك أباي بطل لو قبته وزير رأي كقريب قال جامعة عيلجو جامعة سودو بطلان قيمة تبي كمان نقطة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة الصوماليات ملك استوي شوغان وحنا السلام الله عليكم إن إثيوبيا إلى كم النقدان وواحد أدو شعلان لها لكن أي سهلين أي سنقونين
يعني دي توبي هذا iyadii baa teedu iyo abaro wax kale ma qaadan karto kuwanina waa isku xoqayaan oo maxaan ku raahdaa to leefayaan oo maxaan ku raahdaa to mariyo dhantas ka fureen tunka saarteen iyo daba cararayaan Etoobiyana naga joogay leedahay been aan geeyno ma hayno anagii baa isku badan dabcan muhiimadu waxay tahay labadii maalmood maanta iyo shalayba si weyn waxa guud ahaan gaar ahaan magaalada Garowe looga dabaaldegaya biyo xidhanka abay la yiraahdo iyo wax adis zaman miyal hamsa adis ama waxa garanaya ninkii muxuu ahaa kii waa sheegay juha ninkii juha ee buugi uu qorana meel uu qoray Soomaalida garan waxyaalo adigu isku soo aaday bay u dabaaldegayaan waxa halkaas yaani kaaga muuqanaysa ceebta iyo fadeexada iyo fool xumada meesha taala iyo dadka maanta Puntland hormuudka u ah in ay yihiin yaani dad wax mucjiso ah oo aan bani aadam ba lagu tilmaami jirin lagu karin dad uu nooc makhluuqaadka Ilaahay kamid ah yihiin oo yaani waxaysan ahayn yaani maartay doonay inay iska dhigaan ummad dhanna magaceedii iyo maamulkeedii iyo mas'uuliyadeedii iyo maamuuskeedii haddana ku maartay magacaabana hogaaminaya Soomaalida garan waxa marka yaani mucjiso waxaan u tacsiinayaa dadka reer Puntland ee dadka aan arkay tacsi yaani waxaan uga tacsiinayaa dadka reer Puntland in dadka aan arkay ay madax iyo maamul u yihiin wata maxay sameeyaan madax miyaadan arag iyaga oo saxamo wato oo canjeera ka tuugsanaya xabashi ma garow dhexdeeda seewad tuugsanaya juha iyo kii kale aydiid iyo hoos dhiganaya saxan canjeera cuntada ma cunayeen ya meesha ismeeda xafidi kuwan waxay la dhaxgal meesha inta la galeen fiiri tan loo soo riday in loo keenay ahay madam wasiirayn self service ha iyagu ma geli karaan saxaabadu ay taqaatay canjeera ku rid ku leeyihiin canjeera ku rid waa baahida inta la eg heerka inta la eg baahida gaarsiisan maxay ahay yaani qolihii la Garowe laga qadayo waa runtoodba dad baahan ba meesha tagay markii wasiiradii baahida heerka gaarsiisan ay ka muuqato ee ay naaga xabashi ah oo aan qabaysan oo maxaan ku ilaahay to iyagiiba lafoodii maxaan ku ilaahay to aan daryeelaynin markay canjeera inta hoos saxan hoos dhigtaan ay leeyihiin noogu rid canjeera ku rid ay ku leeyihiin yaani maxamed umar bilaadankii kale dadka kale meesha ku noolaa maxaa marka yaani meesha waxay muujiyeen nooc fool xumo ahaa ee ugu xumaa ee qof bali aadani muujiyo qaybtii fadeexadii iyo waji gabixi qof bali aadana oo Ilaahay abuurtay oo nool oo muujin lahaa bay muujiyeen kow arrimaha waxa meesha uga dabaaldegayaan dalkooda ma aha wax ay wax ku leeyihiin oo ay maal gashadeen ma aha de qaran Soomaalida qaranka iyaga laga ma aruurinine way faataa u maleynaya maxaan ku yiraahdaa sabab ay ugu dabaaldegi karaan juxaba hadlay wuxuu yiri yaani wada daris baan nahay oo waxaan naga dhaxeeyay iskaashi iyo maxaan ku yiraahdaa isdhexgalka bulshada yaa naga dhaxeeya xaguu isagu ka dhaxgalay juxa ha sukada ka dhaxgalay buug qoray sentino ka tahay dambaysay fiiri maanta ka hadlaynaa isdhexgalka maanta Itoobiya iyo Soomaaliya ay isku qabaan deegaanka Soomaalidu waa run juqraafi ahaan Itoobiya ka tirsan yahay waa run Soomaaliyeed weey beesha isagu ka soo jeedo waxbay ka degan tahay laakiin inta uu taga maxaan ku yiraahdaa to dhaqaya boor iyo diirin caana iyo meesha la yiraahdo cagar weyne iyo maxaan ku yiraahdaa to dameere joog iyo waa magaalooyin hadda waxaan tirinayo ogow dameere joog iyo sarhaye iyo qaloocan iyo maxaan ku yiraahdaa to dhaqaya boor iyo intuu tago galaadi iyo dhudub intuu tago waa meeshii uu ku barbaaray ee uu ku soo jabaaday jiray bal ha soo fiiriyo maanta iyo shalayto waxa farqiga u dhaxeeya maalinku uu sentino ka dhaxlaha iyo maanta waa isku mid Soomaaliya garan wuxuu ku leeyahay marka wadana walaalaha iskaashiga horumarka iyo ganacsiga iyo yaa naga dhaxeeya isagu inta shaqo qaado Puntland ma sheegin ganacsatada deegaanka Soomaalida alaab uga soo deey kartaa meesha la yiraahdo garacdo kale canshuur kama qaataan Puntland
soo garan wax Puntland ka yimaada waxa ugu roonaan lahaa kalluunka ugu roonaan lahaa xabad kalluuna uma iibgeyn karaan deegaanka Soomaaliya iska daayay Itoobiya yani meel ka mid ah dhulka Soomaalida ee dalkaas Itoobiya uu haysto baraasoo wuxuu ku leeyahay waxba naga dhexe adaa wax lagu qaba adaa adoon la leeyahay adoon la leeyahay oo sidii la doona loo isticmaalo ayaadayda dadka marka dadka noocaas ay madax u yihiin oon akhlaaqda lahayn oo aan dhaqanka lahayn oo aan sharafta lahayn oo aan karaamada lahayn maxaan ku yiraahdaa oo u yaqaan siyaasadda cay iyo aflagaado waan uga tacsiinaya reer Puntland runba fiican dad sharaf leh karaamo leh ehla wanaagsan way reer Puntland laakiin awsaakhu naas baa waxay u noqdeen madax wata jamcu horay xaflad noocan oo kale tahay inta dal xasuusto oo Itoobiya xageeda ah Canada abay baa leeyay laakiin xaflad Itoobiya ay leedahay horay Puntland noocan oo kale loo dabaaldegay dhowr goor ha mar walba looga dabaaldegay waagi hore waxa looga dabaaldegi jiray haya Gimbood Tigreega يعني اج مامل كميشه جوجا ومامل وسميسن ادوننimo waay waa maamul adoon waay akhlaaqdoodu waa mid adoomeed dhaqankoodu waa mid adoomeed waa dad yani aad u jecel xiiseeya in ay xambaaraan dad kale Soomaalidana ka cararaan yani siyaasadda maamulkan uu ku shaqeeyo xasan ku xumeyn ba markaa arintani xasan maxay yeeli karaan haday si kasta ugu xumeeyaan xasan qofka wax yeeli kartaa wax lagu xumeeyaa حسن سجي بتوكسر يعني سباك waxay ka xun yihiin nooc yar min al-masayr weeyo xasabo waa tagay idinku halkan ku xusa oo xablisiya hadda u daawasiisaan kuwa imaando muuqaaladan la duubayo iyo cansheeradan la tuugsanayo muuqaala laga reebayo waa taariikh weey buugga sintino Soomaa arag uu qoray inuu naag axmaar ah dabadaadu waa meeqa akhlaaqda noocaas qofka yani maxaan ku yiraahdaa lehba ummad dhan u ah wasiir أخلاق ذا النوع عاس ناقبة ما خلد ما وقت تلقل ساسا هذا محن كل هذا يتو يعني مدحوينه وحنا كفر حسين ونك وقبل يا بدر وقبل يا بدر ها وشرفت بدر بيكليه كلها سمع أركين رئيس الوزراء وعل محمد عيدي ها ده وقتك كان معمول كبدل يعني اللي جوشي وواحد نوع عاسوي هذا لكن ما يعني ما ده أخلاق لوي تيران ده شرف له لكن أنت حميد بصوه الرئيسة أنت حميد بصوه الرئيسة ده هتقارب وحقا يعني بدنا وحكي شيء بدنا وحكي شيء إنه ده وحكي شيء إنه وما رتايت ده حل جدا يلاده لكن مرك أن هذا هذلي وحن كهذلي ما ملك يا سيستم كميشة كتيرة سيستم كي أقول حما أقول لي تي أقول محنكو إلى هذايتو فور حما وسيستم عباد وسيستم محنكو إلى هذايتو درس لا حمانته وسيستم سومالي نمدي كفو قادي وسيستم أخلاق دي يتنقن كي وناكسنا أو لن بنانك كتشوغا قاول عباد ملق بنانك تاقموي وسيستم أخلاق دي سيستم أخلاق دي يتنقن كي سو أيهين waxba waxa ay ka xun yihiin waa systemka madaxdiisu ay ayda la soo istaagayso madaxweyne ilaa midka ugu hooseeya qofka aan aytimina shaqada waa laga burinaya waata loo baratamayo xumaanta oo meesha kaliya labada maamul xumaanta ku baratamayo waa Hargeysa iyo Garow hadda Hargeysa ma ka dhacay marka xaflada ma Hargeysa waa raata Hargeysadu waxba qabta laakiin hadda maamulka meeshan ka jira Garow ka jira wax ay xeerinayaan male waxa saa loo tuugsanayo weey waata maxaan ku saxanka loo watay axmaarada maxaan ku yiraahdaa inta balagta loo hoos dhiganayo weey waxa dhimanaysa xitaa dharka wala iska duwaa eg waxa jira sharaftaada iyo milgahaaga iyo nasabiyadaada wax u dhimaya jira waa la dhowrtaa cirdigaaga waa la dhowrtaa maanta ninka maxaan ku yiraahdaa habar xun axmaaro oo teediba u yaaban saxanka hoos dhiganaya إيه وحن ودبال دقينا مكاجا باهي نورت أنا يا كاجا باه دبال دقة سواء عيال قيلية مليان قيلية أو حتى توري سوقلية نمانك عيال بلوني محلها ها كون عيال هنا ها سبدا وتقول ما يمدابي ذاك عيال بس كديلا قارس واحد حلاس كديل كوس جسي نيروبي حتى هو كديلين ذاك أي كديلا هيان ما يغنى ومن أوجا Puntland waxay ka dhigan tahay marka maanta marka aad fiiriso
ciyaalkii maxaan ku yiraahdaa hebel baan taageerayaa iyo hebel waa caay kartaa maxaan ku yiraahdaa hooyada caay kartaa laakiin waxa ciyaalkii isku dilay oo kale noocii waa tahay sharafi dhimatay bani aadanimo dhimatay dadnimo dhimatay soomaalinimo dhimatay wax ay xeerinayaan ma khalad ma aha waa bareed qaar baa waxay joogaan maxaan ku yiraahdaa to hadda ay xaadir ku yihiin Addis Ababa maca Saciidani Addis Ababa joogaan hadii cimilada shirkana lagu ma inay meesha isu sawiraan bay rabaan ha hadii waxa ka dabaaldegeen xagga wax diiday ma jiro soo dahaba lagu ma dawlad fiiri ma dawlad ba waa maamul waa tahay General Saciid Dheere oo la sheegay inuu yahay taliyihii hore ciidanka xoogga dalka ma soo noqonin taliya ciidanka Puntland buu xoogga dalka Soomaaliya ku qoray waa tahay qof noocaas ma noqon karaba اوكي هذا العلوس بكو هذا هذا الكيسه محو يري يعني دي ايثيوبيا وحو ودن كيني بو هاي ايثيوبيا ودن كيني بو هاي ما وانا يعني سرقال عيدان وي هاي عيدك حق ما ودن كيني بو يري walaaluhu walaa Israa'iil baad dhihi kartaa walaalaheen wax dhigo ku jiro هاي sama garay هاي oo dadku waxa weey walaaltinimadu bini'aadamku dhan baa walaalo ah waa ilma maxaan ku yiraahdaa nabi aadan weey wal maxawi aadan baa dhalay laakiin muxuu ku leeyahay waa wadankeeni inaan maal gashano waliba oo maxaan ku ahmiyada yaani maanta aan ka qayb galno way inoo tahay waa sargaal يعني waxa lagu leeyahay ciidanka ma aqaan inuu saraakiil boocbooci ahaana waa suuragal saraakiil boocbooc baa jira kuwa indha cad oo kala sayay dhacdi iyo kulli waa isku darajaan u maraynaya marka waxay dooniba ha noqoto sargaal wata ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaciisa inta soo istaagay inuu yiraahdo Ethiopia waa run daris baan nahay dhul bay naga haysataa waxa laga yaabaa ninkaasi inuu kamid yahay saraakiishii ama askartii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka la galay Ethiopia inuu yahay ku xumayn Soomaalida kale ayuu saa u leeyahay waxaan la sameeynaya saxamada la hoorsanayo Soomaaliya dadka saxamada hoorsanayo ku jira tuugsanay ma tuugsanay ma qadanayeen هذا ما هو كلام مركز كالنور ومركز aad u muhiimo mudan ay dadku mahadsheen macallimiin aqoon loo ku hubaysan akhlaaq iyo way aragnimo ayaa ubadkaaga wax baraya eedimeysido ana huba wadu ay ubadkaaga la gaar markaska Al-Nur waa markas qaab online ah ubadka wax u baraya waxana kugu diyaaraha macallimiin aqoon iyo khibrad u leh waxbaridda ilmaha iyo tarbiyayntooda waxyaabaha ubadka la barayo waxa kamid ah qaybta akhrinta iyo qoridda qaybta xifdinta quraanka kariimka iyo sixidda carabka qaybta culumta diiniga sida luqadda carabiga tafsiirka quraanka kariimka ahadiista fiqiga iyo tawxiidka hadaba wixii tafaasiil dheeraad ah la xiriir nabarada shaashada saaran baad wuxuu waa walaalaheen si walaalaheen buuliba si walaalaheen yani ma hadana waa wadankeeni waa kan marka si walaalaheen ta marka maxay ahayd waa shakhsiyadiisa buu ka hadlayaa wadadka Ethiopia jacaylku madax maray raba cid ay xambaaraan fiiri dad la xambaara la raba meeshan hay xageelkii marka dad salaadii la soo qaado casarkii markay tahayna la galbiyo la xambaaris lagu geeyo dad yaani maxaan ku yiraahdaa noocaas waxa jira ay tahay oo Afrikaan ka Soomaaliya maqal waxa alximaar la yamshi ilaa bil asa Afrikaanka qaar badan waliba Soomaalida qaar badan waxa jira ilaa la garaaco oo la dhangadeeyo aan aqligoodu soo degin jacaylkooduna uu ku xidhan yahay dharbaaxada Puntland kuwaas ku badan marka ku badan dadka jacayl uu maartay leefleefka iyo waxayna ahayn iska raadinta iyo iska dhaadhicinta iyo nacabka aad ogtahay inuu nacabkaaga yahay ma yaani maartay been maartay u gudbinta oo hadana uu kugu ama Ethiopia u maran qof Soomaaliya inay ku aaminayso waa walaalkeen waa si walaalkeen ka si walaalkeen Soomaali markii laga hadlayo cadawgooda kooda wuxuu yaqaanaan Ethiopia ku dhashaan Ethiopia ku dhintaan Ethiopiankuna cadawgooda kooda waa Soomaaliduna cadawgooda boqolaad ha iyadoo saa tahay fiiri iyadoo saa tahay ayaa waxa la yiraahdaa waa dabeecad way waa hirid wax qod dadka ku abuuran way adoon jacaylaysiga yaani in dad aan macna lahayn macna loo yeelo la yiraahdo idinkaan xukuma idinkaan maxaan ku yiraahdaa rabbi iyo rasuul banoo ah idinkaan idin caabudnaa waxa ka socda garowwe waa idinkaan idin caabudaynaa ogaada muuqaaladanina waxa weeye waa cadaymo باشن يعني إثيوبيا لوجود واري وعباده والنوع من العبادة
waxaan aad arkaysa ee meesha laga hadlayo waa cajalado la kaydinayo la raba in loo gudbiyo hadhowto waa nooc yani maarata mucjiza waa qofka bani aadamka ah ee kow waana yani maxaan ku isku daydo inaad qofka bani aadamka isu muujiso inaad tahay qof sharaf leh oo aan adoon ahayn qof ilaahayna aaminsan isaguna is aaminsan inaad isu muujin karto inta soo istaagto inaad dhahdo maxaan ku yaalaato aadiisa mad muxuu ahaa wixii أنا بوا واحد معجزة واحد شريت ماشي كده عم كاس عضاء واحد يعني أنا عادي هنقول وواحد جبني مدي يا شرفك يا قيمك يا قفك بني آدم كإلهي أبورتي يا يعني شرفتي سي سمعت دي سي أو نقول كل اللي يسوي وقت قفك الصومالي هاي مثلا يتوبي عدو كذا كباتها مركو واحد أركو يتوبي اللي ده ما واحد وكوح واي فيري أفر شنقف واي واحد لبعض تنقف كبدنين هاي وواحد نقن كوذا ويهاي oo maxaan ku yiraahdaa waa yaani sintinooda yaani ku soo dhex koray oo wali moodaya maxaan ku yiraahdaa adduunku sidii hore inuu yahay oo jabhadnimadii jooga in laga soo gudbay dawladihii ay burbureen tii Soomaaliya ay burburtay tii Xabashidu ay burburtay maanta Soomaaliya aanay dawlad ka jirin Itoobiya ay dawlad tahay oo maanta nidaam ka shaqeynayo loo baahan yahay yaani daris wanaag kaliya in la isugu yimaado sababta loo boonboorin karo Itoobiya sababta Itoobiya yaani maxaan ku yiraahdaa la isugu dhadhajin karo maxay tahay maxaa sababta yaani dal kale wax uu qabsaday guul uu gaaray sababta adigu dabaaldegi kartaa maxay tahay maxaa idinka dhaxayn kara yaani fiiri dal xorriyadiisa u dabaaldegaya adigu ma wala dabaaldegaysaa jaaliyada dalka ka joogta meesha hadii u dabaaldegaysa iyada u taala laakiin aan ma garan karo sabab yaani hadana madax hadii ma xitaa shacab iska taageeraya ama maxaan ku yiraahdaa saaxiibadood la dabaaldegay ay yihiin waxbay ahaan lahayd wasiiradii taliyayaashii ciidanka wixii baan soo istaagay canjeero yeeleen san mana qono ambaagu waxay ku hadlayaan ma garanayaan ma maxay hatta afka garanaysa lagu tuugsadaa waata afka aad fahmi karto yaa lagu tuugsadaa meesha shalay marka ceeb baa ka dhacday maamulkan ceebeed na reer Puntland waa uga tacsiinaya maamulka ceebeed awal hore haya gimbood wax la yiraahdo looga dabaaldegi jiray xoogaa dadka Itoobiyaanka ah yaa maartay inta meelaha ka qeylqeyliyaan bay iska tagi jireen meesha safaaradooda ku dabaaldegi laakiin tani waa mucjizo ومعجزة وحين أرجني معها ووح أخلاقي يدقنكي يدينتي يا صومالي النمدي بلدكو أوي شعب كريبودا أنه حلنا كوحدا حن كأ اللي ته إما حنكو لهذا يتو دقن كودا يا أخلاق دودا يو وح أيهنو لن أركتين تب حتى يعني بل سؤون ولا هذا واحد مجعني بوتان مقعي بلان بوتان دad sharaf loo karaamo loo macaan wanaagsan dadku in xun iyo in fiican buu waleeyay intii xumayd baa soo hormartay inta fiican baa la rabaa inay ka daba hadasho oo ilaad warnimo matalaan waxa meesha Itoobiya looga barooranayo meesha Itoobiya waa walaalaheen waa si walaalaheen waa wadankeennii sargaal Soomaaliyeed oo dhihi kara ma garan karaan ma fahmi karaan Itoobiya maxay uga dhigantahay in waxba أذا هذا عيالك يسكت دليل بانكو محنكو هذا يتو هبل ومعاي كرتيده محنكو هو يلي معاي كرتا إدوري يسوقي نيروبي دنا سومالي لها ميو أوجي كوا يسكت دليل وكوا سو كلوي واحد أي كوكتا وما نباهنا واحد إثيوبيا واحد باهي وما قبته قف سومالي أو كبيه سو أوريان أو محنكو هذا يتو السجيبة يعني محنكو هذا يتو بختي وحلال وياهي أو شرفتي سي يدد نمدي سي سجود دبتي أو ولالكي أن نبت جرين كرين ولكن العلقة أو محمد يقول هذا جريس جبنايو إثيوبيا مصالح محمد كسو كورين كرا إثيوبيا سومالي إثيوبيا محمد كسو كورين كرا كوتشك شو إثيوبيا محمد كسو كورين كرا وأظن رمانتو كهرجيسة شوكا كجروة شوكا كتشيت شوكا كحمر شوكا وقالوا بالسجودية حبش بالسجودية دنا كما إلها أنت أم بكربتها أمتنا أو أمك لو أفضوان وان أو هذانا يجو إسوا أفضوان وهذا ولا نيجي شو حكوا هيسن كرتا حبش أم إثيوبيا هذا يتكلم سوي شيء هل سكن وين سكن متشوي كران مركا أمد يدو إسبهد الشيء أو يجو إسدولية أو ترتمية قني ماذا كترتمية قني ماذا هرجروه وحي قني ماذا كقد يريس مال كستة ترتكي كوب كقني ماذا جروه قاد
number 1 maanta caalamka oo dhan دروا نمبر يدي هرجيس اسكو هيست اول هوري لكن هذا يلا قاعدين والله صحيح انا صحيح هذا ما صدق جامعه واحد داود القضب كنا انت سو غبغبينا تن كلن دنبه نبد جليو